السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك لك هقونكود ما أنت هلكن waxaa idin kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyin qaybtiisa afraad daawasho wacan. Juun sanadii 1960 gobolada waqooyi haatan loo yaqaan Somaliland ayaa xorriyadda ka qaatay gumeystihii Ingiriiska. Juun sanadii 1967 waxaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya loo doortay mudane cabdirashiid cali sharci. bishii juun ilaa julaay sanadii 1991 Jabuuti ayaa shir wada hadal u qabatay 6 kooxood oo Soomaali ah, halkaasna waxaa la isku raacay in uu Cali Mahdi yahay madaxweynaha Soomaaliya. taasina waxaa diiday hogaamiyihii garabka military ee jabhadda USC General Caydiid. juun 1992 ururka Al-Ittixaad ayaa isku dayay in ay qabsadaan gobolada waqooyi bari ee haatan loo yaqaan Puntland, waxaana jabiyey jabhaddii SSDF oo hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. juun sanadii 1993 heshiis xabad joojin ah ayaa waxa uu dhex maray jabhadihii SSDF iyo USC, waana heshiiska loo yaqaan heshiiskii Gaalkacyo. waxaa qodobadiisa ka mid ahaa in ciidamada laga saaro magaalada Gaalkacyo lana geeyana meel u jidha 70 kiiloomitir. juun sanadii 1993 24 ciidan Bakistaani ah kana tirsanaa UNISOM ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho markii ciidamadii General Caydiid ay meel u galeen weerar gaadma ahna ku qaadeen. bishii juun sanadii 1995 General Caydiid ayaa ku dhawaaqay dowladdii Salbalaar. juun sanadii 1998 magaalada Garowe ayaa loo doortay caasimadda dowlad goboleedka Puntland. juun 2001 muddadii xukuumaddii Puntland ee baarlamaanka ayaa dhammaaday. gudoomiyihii maxkamadda sare ayaa waxa uu diiday in mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu kordhiso xilka, sida dastuurka dhigayana waxa uu sii ahaanayaa mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne ku meel gaar ah inta la qabanayo shirbeeleed. juun 2006 Sheekh Shariif ayaa loo magacaabay gudoomiyaha maxaakiimta Islaamiga ah. juun 2006 maxaakiimta Islaamiga ayaa si rasmi ah gacanta ugu dhigay magaalada Muqdisho, waxayna ballan qaadeen in nidaamka la soo celinayo shareecadana lagu dhaqmayo. juun 2007 ra'iisul wasaare Maxamed Cali Geedi ayaa ka badbaaday qarax gaari oo lala beegsaday gurigiisa. juun 2007 waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Daar Aadan Cadde. juun 2007 ra'iisul wasaarihii Itoobiya Meles Zenawi ayaa soo boqday Muqdisho, ballan qaadayna in ciidankiisu ka baxayo Soomaaliya marka nabadda la sugo. juun 2008 dalka Jabuuti waxaa wada hadallo ku dhex maray dowladda federaalka ku meel gaarka ahayd iyo mucaaradkii ARS. waxaa wada hadalkaas laga gaaray heshiis xabad joojin 3 bilood ah. heshiiska waxaa ku jirtay in ciidanka Itoobiya 120 maalmood kaga baxaan dalka Soomaaliya. juun 2009 markuu sii cuslaaday dagaalkii ka socday Xamar, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku dhawaaqay xukun degdeg ah. dowladduna waxay ka codsatay beesha caalamka in la soo taageero dowladaha jaarka ahna ay ciidamo si degdeg ah ula soo gaaraan. juun 2012 madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ra'iisul wasaarihii dowladda federaalka ku meel gaarkeeda u magacaabay mudane Cabdulle Cali Gaas. intaas ayaan jeclaystay inaan la wadaago. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan like saar, share dheh oo asxaabtaada la wadaag. insha allah waa inoo muuqaalka xiga. inta ka horeysa fi amaanillah. dibutoosa oo kaca qolaqolada naga tira iska tuura heryada oo la tartama adduunyada oo yaan danaysteeno talin oo